kulanka golaha fulinta dawlad deegaanka Soomaalida oo hogaaminayay madaxweyne ku xigeenka dawlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax ayaa dood iyo falaqeyn kadib lagu ansixiyay bayaanka kabista miisaaniyadda dheeriga ah ee kordhinta mushaarka shaqaalaha dawladda iyo isbeddelka mushaar kororka shaqaalaha dawladda oo ka badan 3.4 bilyan oo bir. sidoo kale golaha fulinta dawlad deegaanka Soomaalida ayaa ansixiyay xeer nidaameedka aasaaska golaha shaqo abuurka heer deegaan iyo xeer nidaameedka aasaaska shirkadda warshada furunka iyo daqiiqda ee Jigjiga. maanta kaabiniga deegaanka ayaa u fadhiistay kala fadhigiisii oo ku ansixinayay mushaar kororka shaqaalaha dawladda ee cusub ee dalhaana laga fuliyay deegaanadana laga fuliyay deegaankeena maanta ayuu ansixiyay mushaar kororka oo national ama dalhaan muddo 2 sano daraasad lagu sameeyay muddada 2 sano waxa daraasad lagu sameeyay shaqaalaha dawladda yaani mushaaraadka qaataan mushaaraad hadda noloshooda ka feenay muuhin marka waxa la istusay in daraasad lagu sameeyo oo xoogaa hadda maanta nolosha jira ayo inflationka jira markii dalhaan la eego nolosha aad u korortay in shaqaalaha kabitaan lagu sameeyo oo mushaar koror loo sameeyo sidii Magdhow ay u helaan si guud mushaar shaqaalaha dawladda deegaanku iyo shaqaalaha dalkuba hadda mushaar koror kala sameeyay noloshooda way wada kafeenaysaa looma sameyn laakiin wax xoogaa ayay wax tar u sameynay wax ka bedel noloshooda ama ay caawin baa isleeyahay kaabiniga maanta wuxuu fadhiistay bisha taqamta laga bilaabo ilaa sanadka dhamaadkiisa iyo hadda wixii ka dambeeyaba in mushaarkan cusub lagu siiyo shaqaalaha dawladda mushaarka oo bisha taqamta iyo hidaar intii la isku daro back payment la sameeyo oo bisha hidaar hadda aan taaganahay shaqaaluhu ay ku qaadan doonaan mushaarkan cusub si guud ahaan dalka 9 bilyan oo koror ayaa lagu sameeyay deegaan kasta shaqaalihiisa lagu sagleeyay si guudna waxa la sameeyay shaqaalaha dawladda dalka oo dhan 300% ilaa 7% waa kororka mushaarka la sameeyay marka 300% oo shaqaale hoosaadka inta u badan awoodda la siiyay la saaray maadaama lacagaha qaataan ay aad nolosha reality-giisa ama xoogaalka nolosha aad ugu fogtahay sidii xoogaa ay nolosha ugu soo dhawaadaan ay u cover garaan ama nolosha u handle garaan oo aqbalaan waxa aad kororka inta u badan focuska loo saaray ama diiradda loo saaray waa shaqaale hoosaadka oo 300% lagu daray ilaa ay hogaaminta oo dhan baa lagu daray waxa ugu sarey 300% waxaan ugu hoosee 7% oo hogaaminta iyadoo ay tahay marka 300 ilaa 7% inta u dhaxeeya ay shaqaalaha dawladda oo mushaar koror lagu sameeyay marka saaka kaabinigeena wuxuu ansixiyay mushaar kororka in bisha taqamta laga bilaabo ay shaqaaluhu dawladda ku qaataan in xoogaa ka kabto nolosha maanta xaaladda nolosha ay taagan si guudna dalka ahaana waa lagu wada daray deegaankasina uu fuliyay deegaankeenuna laga bilaabo bisha hidaar oo back payment-ka taqamtiga leh waa lagu bixin doonaa dollar waxa laga soo saaray manualka oo lagu qeexay cidda ay qusayso mushaar kororkan waxay qusaysaa shaqaalaha dawladda rasmiga wax contract ay qusaysana ma jirto waxay qusaysaa shaqaalaha dawladda 25,000 waxa ka yar mushaarkoodu ay qaataan oo dhan bay qusaysaa wixii 25,000 ka badan ma laguma cover garin mushaar kororkan cusub hadda la dhaqan gelinay